magacaygu waa Zikri Cusmaan Nuur waxaan ka tirsanahay qaybta Risk Management Unit ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Adeeg EVC Plus oo ah adeeg mobile money wuxuu fududeeyay in si fudud wax lagu iibsan karo sidoo kaleeto in si fudud lacagta la iskugu diri karo. Shirkadda Hormuud waxay markasta ka shaqeynaysay in adeegan uu noqdo mid la isku haleyn karo, la aamini karo iyo in security-giisu uu noqdo mid aad u sareeyo. sidoo kaleeto in la waafajiyo shuruucda dalka iyo standardska kale ee caalamiga ee u degsan shirkadaha bixiya adeegga mobile money-ga. Si loo horumariyo adeegga EVC Plus, shirkadda Hormuud waxay go'aansatay inay qaadato shahaadada caalamiga ee GSMA. Shahaadadani waxay ku saleysan tahay qiimeyn madax bannaan oo ku saabsan awoodda adeeg bixiyaha si uu bixiyo adeeg sugan oo la isku haleyn karo. Waxaa qiimeyn ku sameeyay khubaro madax bannaan oo ka socday GSMA iyagoo oo qiimeeyay ku dhawaad 300 oo requirement oo daboolayo awooddeena inaan gaarsiino macaamiisheena adeeg aamin ah sidoo kaleeto la isku haleyn karo security-giisuna uu noqdo security aad u sareeyo. qiimeynta kadib waxaa inoo farxad ah inaan ku guuleysanay shahaadada GSMA sanadkan 2022 sidoo kale waxaana lagu guddoonsiiyay shahaadadani shirka caalamiga ah ee Mobile World Congress ee Africa ee sanadkan ka dhacay magaalada Kigali ee caasimadda waddanka Rwanda. Hormuud Telecom waxay noqonaysaa shirkaddii ugu horeysay ee qaadatay shahaadada GSMA gudaha Soomaaliya. Inta aan processka shahaadada aan ku qaadanaynay waxaa inoo soo baxday in security-ga adeeggeenu uu ahaa mid aad u sareeyo oo la isku haleyn karo. qaadashada shahaadada GSMA waxay nooga dhigan tahay in hantida iyo xogta macaamiisheena ay ku jirto gacan safe ah iyo in macaamiisheena la gaarsiiyo adeeg tayadiisa aad u sareyso.